inaan idin sheego gobolkan hal geesiyaa laga yaqaanaa intaan ogahay. halka geesiyoo laga yaqaanaa waa ninka walaalkiis dila. ninkaasaa geesi loo yaqaanaa. maxaa sidaas u leeyahay? dadka markaad la sheekaysato tuulooyinka jooga dagaal oogayaasha yaqaaniin, kuwa nabadda ka shaqeeya ma yaqaaniin. nabadda kuwa ka shaqeeya oo u dhagan nugul ma yaqaaniin. rag hadda tiro badan oo nabad loo aasayna ma maqal. rag tiro badan oo liir ayagoo nabad ka shaqeynaya ku dhinteen oo la aasay gobolkan aad uguma maqal. waa jiraan masa badna, laakiin dad badan oo ayagoo colaad ka shaqeynaya ku dhintay oo loo aasay waa naqaanaa. kuwa la dulmiyena waa naqaanaa oo ayagoo dagaal ku jirin la dilay. dhinac kasta ha ahaadeen. walaalayaalow, maanta meeshaan aad joogtiin iyo casriga aad joogtiin iyo cimriga aad joogtaan, meeshaanu galabta geesiga nabadday u baahan. geesiga dagaalka uma baahna. jidka aan ku soconno meeshuu ku dhammaanaya inaan naqaano waa. jidka aan ku soconnaa wuxuu ku dhammaanaa meeshii ay ku dhammaadeen jidadkii aad marteen ee idinkoo isla jira oo isku reera iyo kuwo kaleoo isku reera aad Soomaali ku duusheen ee isku duusheen isbaabi'isaan qabyaalad darteed ee keentay intaad soo noqotaan idinku inaad islaysaan ee keentay kuwa safka iskula jiraa maanta inay maalmo ka hor islaayeen. dadaan run isku sheegino beenay isku sheegaan. waxaan idin leeyahay walaalayaalow, waa naga garaad badantihiin, waana naga caqli badantihiin, laakiin waxaan u malaynaa iskuuladaa jirta u baahan in la baaro. bahasha qabyaalad la yidhaah haddii caana lagu maalaayo oo wax lagu gaaraayo oo la kala adkaanayo oo dhul la kala qabsanaayo oo sharaf la kala helaayo, waa soo aragteen. nooma dhinna. nabadda ma tijaabin karnaa. waa naqaanaa ragga ama lugaha go'an ama gacmaha go'an ama madaxu maqan yahay dagaalada qabiilka ku dhaawacmay. dhulalkaan jooga waa la wada yaqaanaa. rag nabadda u gacmo go'an ma heli karnaa oo u luga go'a. kuwa ilaahay uga fogaaday oo aan ogahay inaan niyadda ku wada haysaan isleediin hebel ninka leeraa meeshuu ku dhintay xumeeda meeshuu ku dhintay aad qalbiga ka wada og tihiin oon afka laga sheegi karin. ma ku bedeli karnaa kuwa aan dhahno hebel ninka leeraa meeshuu ku dhintay wanaagsaneeda oo fiicneeda? ma ku bedeli karnaa? waxaan ogahay intiin halkaan fadhisa oo qabiilada ka socda mid kastoo idin ka mid waa dhibane gurigiisa tacsiya ka jirta, si dadban iyo si toosan labada. ninkii kaa dhintay nin maanta dhihi kara jihaad uu ku dhinto janno jira. ninkii uun raganimo iska dayayo uun rabo inuu warka iska leexiyo waa dhihi karaa, ama rabo inuu wiilal kale ku qaldo. kuwa kale uu rabaa inuu qaldo say biri dagaalka u galay kaas wuxuu ninkaasu rag dhalay ayuu ahaa. reerka u dhintay aawo, guriga reerka u dhis. ninkii waa dhintay guriga reerka u dhisay aawo, biilkii ilmihiisa reerku u qoray aawe, masaajidkay u sadaqeeyeen aawe, sharaftii ammaantii u yeeshay aawe. walaalayaalo, waxaan ku noolnahay camal shaydaan oo been lagu qurxiyey waa. quracdaas maran oo wax joogala iyo wax daaqa iyo wax dega ayaad isku haysataan, waa nugu yaryihiin. kii horena waa bannaanya. tacsiyaad ku wada jirtaan, guryihiinni adduunsan. dhibna uma aragtaan, weliina mid kale sii dishaana rabtaan. waxaan leeyahay odayaashu waa dadaaleen, kullay dhibaa haysta. waa un ay raggeennaan leekaayeenna inay colaaddu socotay waa u malaynaa. ragga dhallinyarada halkaan jooga ayaan rabaa inaan farriin u diro iyo kuwa kalena daawo doona. cimriga aabbayaashiin iyo adeerradiin dagaalka ku gaareen ha ku gaarinina. shallayga ay qabaan maantana ha qabinnina. maantaad fursad haysataan. aakhiro cid lagu soo ammaanay oo qabiil u dhimantay haddaa ogtihiin ku dayda waa okay, waa fiicanta. qof qabiil u dilay laleeyahay la hela ninkii hebel ahaa jannadii meel fiican inta aayad loo helo sheekh aayad kor saari karo waa fiican tahay. wada hawsha niman guriga ku helay oo ku tacbaday oo ku xoolaystay oo ilmahoodii wax ku barteen haddaa aragteen wada. hadday beddelkeeda toy qoomama tahay oo hooyadii wiilkeeda dhintay ooynayso oo adiga walaalkaa waaye ooynaysa oo midka cuuriyaankaahu shallaysan yahay, maxaa jidkaan ugu socotaa? waxaan rabnaa bini aadam noolaan nahay caqliga iyo dareenku inuu na hoggaamiyo. ummadda ilaahay wuxuu garashada u siiyey inay go'aan ku gaarto.
waxaan aaminsanahay marka qabiilinta isku yimaado uu ku tashado aan reer hebel ku duulno waxay ku ballameen aan caqliga iska qaadno aan been isku sheegnay ku heshiiyo walaalayaalo caadifadda waa fahmaynaa hal maalin ma baxayso beenta waa fahmaynaa hal maalin ma baxayso shaydaanka laftigiisu markuu kugu bato oo guri kaa dhisto ilaahay waa dhici kartaa inuu iimaanka hal mar kuu soo dejiyo laakiin tartiibay u badan tahay bal horta meeshii aan galabta geedkaan intaanan imaan joogna meel ka duwan annagoo joogna caawa meeshaan aan ka tagno waxaan idiin sheegayaa oo ilaahay ugu ogyahay labada dhinacba waa la socdaa waxaad isku haysataan been waa brobagando waa been waa waxaan la taaba karin waa waxaan galabtay haddii faraha looga qaado qolo kastaa waxa ay dalbanayso aan wax ugu soo kordhaaho jirin wax uga halaaba maahan waxaan ogahay waxaa isku haysataan maanta qoladii faraha laga geliyo hal natiijo ay caawa la hoyanaysa ma jirto hal xabo ay la hoyanaysa ma jirto waxaa isku haysataan raganimo waay oo shaydaana qurxiye geesiga maanta meeshaan ay u baahan tahay nin shaydaanka hortegi kara waa nin shaydaanka ku hor ordi kara ma nin shaydaanka inta ka soo horjeesta dhihi kara waaye walaalkay beenaad ku socotaa dulmiyaad ku socotaa nin odagiisa gacanta ka qaban kara waaye oday wiilkiisa gacanta ka qaban kara waa waxaan la yaabay meeshaan dhiigga muslimka sida loo fududaystay ma aayadahan la isku raacsanayn oo dad aayadaha khilaafsanaa jiro ma waxaad aaminsantihiin in qayb idin ka mid gaala yihiin sidee ku dhici kartaa inaad masaajidkana aado halkaana qof walaalka oo muslim ah ku disho sidee isku qaban kartaa waxaa ka cararayso masaajidka ka gelaysid miyayna cadaab ahayn maxay yihiin waxa masaajidka loo galayo horta masaajidka maxaa laga rabaa masaajidka soo ilaahay naxariistiisa lagama rabo war ninka ragaya galabta inta go'aan qaatay yiraa colaadaas anaa go'aan ka gaaray anaa geesi anaa bannaanka taagan qabiil ma ahi fidna ma rabo muxuu ka baqaa miyaanay ahayn ma wuxuusan aaminsanayn ilaahay ballanqaadka u bixiyey inuu run yahay ilaahay ballantu qaaday inay run tahay miyuu qofkaasi ka shakisayo wuxuu isleeyahay xasniyow mise ballanta ilaahay waxaa kala weyn warka shaydaanka iyo muuqaalka shaydaanka oo aan natiijada lahayn dhallinyarada dhimanaysa miyaanay taariikhda aqoonin oo aanay ogeyn abtiyaashood iyo adeeradood meeshay ku dambeeyeen miyaanay ogeyn shalay kuwii dagaalkii magaaladan ka galay oo dhintay xaggee jiraan maantadan aan joogno shalay kuwii galay xaggee jiraan kuwa dhaawaca ahu oo isbitaallada yaallaa maxay ku dhaawacmeen kan dhintay muxuu helaa adduunyada waxa loo xarbiyaa waa inaad ama adduunyo waxesho ama aakhira waxesho soo maaha dadka dagaalkan gala dad adduunyana maaha dad aakhirana maaha labadaba maaha dad adduunyo maaho tacab kama helaan oo nolol kama soo gasho oo nimanka dagaalkaas ku jiro aan labada dhagax ku soo arkin nimanka meeshan ugu foosha xun waa dadka dhulkan jooga nimanka ugu caataysan oo ugu rafaadsan oo dhibka ugu badan ka muuqda waa adduun halkaasay ka joogaan aakhirana cadaab uu ka joogaa waa kii halkaas noogu sheegayo labada muslimee seeftooda kulanto labadaba waa ahlu naar marka ma xadiiskaadan rumaysnayn ma aayadaadan rumaysnayn ma waxaanan ogeynaa jira